maanta waxaan la kulanay ra'iisul wasaaraha kulankaasna annaka ka codsanay ra'iisul wasaaraha maadaama uu yahay madaxii xukuumadda ilaa 3 sanaan hadda soo shaqeynayno howlo badan aan qabanay waqtiga doorashada ku aadan waxaa ka hartay wax 2 sano ka yar waxaan rabnay marka inaan ka wada hadalno arrimaha aan u baahanahay oo dhan si ay noogu hagaagto doorashadaasi haddii ilaahay idmo waxaan soo bandhignay arrimaha ugu muhiimsan ee ay tahay sanadkan 2019 howlaha inaan qabanno ay tahay haddaan howlahaas qabanana aan ka u gudbayno 2020 haddii ilaahay idmo oo aad loogu sii dhowaanayo markaas waqtigii doorashada oo ahayd waqtigii weliba diiwaangelinta codbixiyaha la sameynayay iyo doorashadii weyneed la sameynayay howlaha noogu waaweyn oo hadda inaan qabano 2019 waxaa marka ugu horeysa midda ugu horeysa in aan dabagalno oo arrimaha aan weydiinay muxuu ahaay aan kala hadalnay ra'iisul wasaarahan ay ahayd sharciga doorashooyinka inuu soo baxo ugu horeyntii markuu hadda baarlamaanka yimaado in sharcigaas doorashooyinka la helo maxaa yeelay sharciga doorashooyinka waa furaha doorashooyinka haddaan kaas lahaynin tallaababa ma qaadi kartid midda kaloo labaad waxaa waa isagana sharciga xisbiyada meelaha yaryaro u baahan in lagu noqdo oo haddaba golaha wasiirada uu yaallo in ayadana baarlamaanka loo gudbiyo oo lasoo dhammaystiro midkaasna waa qodob kale waxaan kaloo kada hadalnay inaan rabno xaruntii inaan helno annaga halkaanaan deganahay madaxtooyada dhexdeeda xafiisyadu waa yaryihiin sababtaan u degnay waa naqaanaa sababtii dowladda ku horeysay ee noo dejiso waa la ogyahay waxay markaasna ayadoon waxba meel nala geeyo oon degno faraha lagu hayn iyo iyadoo nabadgelyo iyo culayska runtiina la saarayo muhiimadda uu guddigan leeyahay si nabadgelyadooda loo ilaaliyo inaan meesha u degnay hadda guddigu waa batay waa faafay markii hore 9 komishinaraan ku bilownay haddana ilaa 8 qofaan nahay uuna sii kordhooyaa in marka xarunteeni laga howlgalo sidii xaruntii aan ku degi lahayn oo meeshaan aan uga bixi lahayn iyo hadda arrimo degdega in laga sameeyo oo aan waqti dheer sugi karin oo xaruntii lagu kayd gareynayay macluumaadka aan ka shaqeynayno dhan ugu horeysa hadda iclaamintii goobihii codbixiyaasha oo hadda aan u dhaqaaqayno oo aan soo cadeynayno oo aan sameynayno iyo warehousekii ama baqaarkii weynaa ee la dhigi lahaa wax allaale wixii qalab oo shaqooyinkan nooga baahan aan dhigan lahayn oo haddaba soo bilowdeen inaan kaas helno dhismihiisa inay dowladdu marka naga caawinto sidii meeshii loo hagaajin lahaa dhulka sidii loo sumi lahaa sidii koronto loo keeni lahaa sidii biyo loo keeni lahaa sewage sidii loogu sameyn lahaa arrimahaasna waan kala hadalnay waxaan kaloo aan kala hadalnay wacyigelinta ayadana in gacanna lagu siiyo waxaan aad uga hadalnay arrimaha xisbiyada iyo arrimaha maaliyadda iyo arrimaha muxuu ahaay nabadgelyada arrimaha maaliyadda waxaan ka hadalnay in sidii hore aan kusoo shaqeynaynay inaanan ku socon karin hadda kadib shaqadu ay isdaba taagan tahay waqtiguna uu aad isu soo guraayo marka in meelaha aan u baahanahay inay dowladda naga caawintaa u sheegnay aan kala hadalnay ra'iisul wasaaraha runtii waxaan kala kulanay soo dhaweyn aad u fiican waxaan kala kulanay dhageysi fiican uuna dhageysanayo waxaan kala siinay warbixintaasi inuu si fiican u qaadanayo nooga soo baxday qodobka ugu weyn oo maanta aan meeshaan kala baxaana waxaa waaye ra'iisul wasaaruhu in uu yiri waxaan raalli ka nahay inay doorasho dhacdo waxaan rabnaa shacbiga Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed inaan awoodooda gacanta ugu celino si mustaqbalkeena uu u iftiimo arrin weyn oo muhiim noo ahayd waxaa noo muuqatay arrimihii aan ka codsanno dhanna in uu qoranayay uuna yiri inta ugu badan uu hal u galay uuna yiri mid kasta waxa uu ka qaban karo iyo sida ay tahay aan ka wada hadalnay wuxuu ahaa jawi fiican wuxuu ahaa shir fiican waana noo socon doonaa